السلام عليكم guys ولكن ودني بحر إن الله سود هذا فضلا هدي أنا قصب تاعي نوصابير أو سبسكرايب صار هديات هري وصارتني ما هتسند مجعي جوا ودني بحر هلكا دي قد ونس إنه CM فلوجز أم فيلمز ما توقع إنه وذا ويل أيا وحو إيسو ديب تشيكو واللي بقى سيجو دونيو إن لقى يطلع وأرين شعيل طبعا أن وذا دي سنة شيكة سيقول عادي wuxuu ku bilaabay sheekada sidatan wuxuu yiri gabar ayaa waxaan wada soconay muddo sanad iyo 8 bilood gabadhaas markii aan isbaranayna ayuu yiri anaka wada socono 5 maalmood ayaa waxaan ku fikiray inaan gabadhaasi waqti lumis aan ula socdo oo aan waqtiga bis ku lunsado markii aan sidaas ku fikiray ayaa waxaan wada soconay ilaa muddo 10 maalmood ah kadib waxaan ka dareemay ayuu yiri oo waliba ay ugu beertay wax la yiraahdo kalsooni iyo farxad kadib waxaan uqaada ayuu yiri jacayl aad u weyn waxaana qalbigayga ee ku yeelatay boos aan marnaba laga tirtiri karin ayuu yiri kadib waxaan go'aansaday inaan siiyo kalsoonida isiisa mid la mid ah waxaana iskugu dhiibay si aanan caadi ahayn wiilkii wuxuu yiri gabadha waxaan ku wada soconay ayuu yiri muddo dhan farxad iyo kalsooni iyo jacayl ilaa aan ka gaarno hal sano ah waxaan ku wada fikirnay inaan isguursano oo aan isdoonano balse aniga ayaanan waxba haysanin ayuu yiri ma ahayn qof lacag ku filan haysta waayo gabadha waxay u baahan tahay aroos iyo aqal weyn in loo dhigo si farxadna loo guursado balse aniga intaasi ma haysan ayuu yiri kadib waxaa dhacday maalmaha kamid ah inay igu tiri niyo ma soo doonatid maxaa kugu dhacay kadib waxaan ku yiri abaayo arintaas ayay u akiran tahay ee waqti isii kadib waxay tiri waqti alla waqtiga jeceshahay qabso waan ku sugayaa waayo aniga adiga ayaan ku jooga ay tiri 8 bilood ayaan qabsaday gabadhina waxay tiri waan ogolahay balse waliga qalbigaaga yuusan ka bixin jaceylkeena iyo balanteena ahdigeena waxaan ku yiri waa balan oo waana diyaar wiilkii wuxuu yiri xaafadii ayaan u soo boqolay waxaana u imaada ayuu yiri waalidiinteeda waxaana u sheegay arintii waxayna idhaheen waa fiican tahay wiil fiican ayaa tahay maadaama aad qabsatay 8 bilood waxaan kugu raadinaynaa intaad u baahan tahay waana ku guurnaynaa si farxad la'aan waliba kugu guurnaynaa ay igu yiraahdeen ayuu yiri kadib wiilkii waxaan u soo boqolay dhanka gabadha waxaana u sheegay arintii farxadda ahayd markaas kadib waan wada soconay gabadha reereen iyo farxad jacayl ayaan ku wada soconay ileen gabadha aabaheed ayaa wuxuu basiiyay mar hore nin jira qurbaha anakuna war kama hayno waan iska wada soconay waxay ku heshiiyeen 2 bil kadib in la guurso doono gabadha laakiin anaka warba kama haynin arintaasi 8 bilood ayaa dhamaatay anigoo isku diyaarinaya guurkii ayaa gabadhii soo wacday waxayna igu tiri aboowe arin ayaan maqlay arintaas oo ah in la isiiyeen waliba 3 bil ka hor in ninkaas la isiiyay oo ka soo socdo dhanka iyo London waxaan sameeyay ma aqaano waxaana liigu yiri iska ilaw wixii hore u soo laabo noloshaada dhabta ah waxaad xaq u leedahay aabaha wuxuu ku siiyay inaad ku dhaqantid waxaan sameeyay ma aqaano ayay tiri aboowe macaani maxaan sameeyaa hadda arintu waxay taagan tahay farducay iyo habaar waxaana liigu dhahay hal bil kadib ayuu imaanayaa guurkiisana waa la diyaariyay wax walbana waa la diyaariyay reerkiisii reerkeegana waa kulmeen ayaa liigu yiri meelaan aado waxaan sameeyo intaba ma garanayo waxaana la itusay sawirkiisa waxaana liigu qancinayaa waqti walba inaan asaga u sii jeesto wiilkii wuxuu yiri waan naxay walwal naxdin iyo fikir intaba marka ay igu dhaceen ayaa waxaan sameeyay inaan garawa ayaa waxaan ku iri isug 10 maalmood kadib waan wada kulmeynaa adigoonan u sheegayn arimaheena cidna waa la wada og yahay inaan wada socono waliba aan aad ku jeclahay ayay tiri laakiinse waxa liiga horkeenay inaan iska ka ilaabo oo nolosha dhabta aan u soo laabto nolosha dhabta waa maxay mateeda nolol falsa ah maniga qurbaha jira ayaa noloshiisa dhabta ah waxaan kaloo iri diyaar ma u tahay inaan isla fakano waxay tiri ha balse leediide inaan u soo baxo banaanka xataa waa laga reebay iskuulka iyo meelaha asxaabta aan aadi jiray waxaana li ogaaday inaan wax walba sameyn karo waxaana lagu celiyay guriga haddaba wado ima furno oo aanan ahayn inaan guriga iska dhex fadhiyo waxaan ku iri ayuu yiri gabadhii markay sidaas igu tiri aniguna ma aqaano waxaan sameeyo ayuu yiri kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan u tago si toos ah waliba anankii iyo reerkeena wax walba igu soo dhacana inaan u adkaysto
balse go-aankaasi keligii ayaa gaaray ayuu yidhi. idinku maxaad igula tali lahaydeen? Gabadha sidaasne ayaa lagu hayaa guriga ayayna ku jirtaa. hal bil kadibna nin kale ayaa laga siinayaa. aniguna waxaan sameeyo ma garanayo. bal asxaabay, idinku taladiina isiiya. adiguna wadani baxar taladaada isii saaxiib. waan sugayaa taladiina. haddii ay tahay tala fiican waan qaadanayaa, laakiinse ku darso xisaabta in aanan ilaawi karin gabadhani oo aan aad u jeclahay. maxaa xal ah? maxaan sameeyaa? maxaase ku dhaqaaqaa? Gabadhuna guriga ayaa lagu dhex xiray oo bannaan looma ogola, ayadoo weliba la jujuubeynin oo caadi loo celiyey, laguna celiyey farduca iyo habaar. halkaasi ayaa sheekada ku eg tahay asxaabay. haddaba aan usoo jeesto taladeeda saaxiib. horta adduunyadan wax walba waa la arkayaa, waxaan la arkayni ma jiro. balse aan kuu sheega talada, wax duca iyo habaar la dhahayna ma jiraan. duca iyo habaar waa la isku cabsiyaa mooye cid ama hooyo ama aabbo, waalid gabadheeda ama wiilkeeda nin kale dartood ama qof kale dartiis looma habaarayo. taasi aan kuu sheego, gabar ama gabadheeda nin dartii haddii iga diida ninkaas dartiis inaan u habaaro gabadheeda, no wax dhici kara maaha. waa macquul in laguga cabsiiyo, laakiinse go-aanka adagaa iskale. haddaba gabadha waxaad ku dhahdaa ducii habaar wax la yidhaahda ma jiraane. arrinta dhabta ah u sheeg waalidiinta. ninkaas dooni maayo, habeenna dooni maayo, maalinna dooni maayo. keliya hal qof ayaan rabaa. qofkaas ama ha ii xumaado ama ha ii fiicnaado. ma dhigu daraa may ama haa. haddii may lii dhaho gurigaas ka dhex fadhinayaa, nin dhan ma doonaayo. ma doonaayo nin dhan. qasamaa ligu leey ninka ii soo dhawaadaa. dabcan wixii ku dhaco idinkaa isku keene. ani dooni maayo anigoona amar jebinaynin. waayo nafteeda, nolosheeda, mustaqbalkayga aniga ayaa mas-uul ka ah. haddii ay dhacdo inaan nin kale guursado, waxaan guursanayaa ninka aan jeclahay. midda kale ee dhees waxay tahay, qofka la guursanayo waa aniga, qofka guri lala tagayo waa aniga, qofka dhaqmayo waa aniga, qofka u baahan inuu heer gaaro ama reer fiican ama famil fiican noqdone waa aniga, qofka dembiga reerkiisa loo qorayo waa aniga, qofka dhibaatada lasoo gaarsiin karo waa aniga, qofka aan farxadda helaynin waa aniga, qofka nolosha cariirigaa galaya waa aniga. intaas ayay u sheegaysaa waalidiinta. kadib waxay leedahay aniga nolosheeda intaba meesha aan gelin aniga og. idinku waa isoo koriseen, waa ay dhasheen, waa isoo barbaariseen, wax walba ay fahansiiseen, laakiinse meesha iiroon aab anigaa garanaayo, hooy anigaa garanaayo. dooni maayo ninkaas ama nin kale dooni maayo. waa lagu habaarayaa. habaara gurigiisaan ku dhex dhimanaya aniga. ma waxaa laygu qasbayaa nin aan rabin iyo mustaqbal aan rabin iyo guri aan rabin? intaas haddee dhahdo, waxaan aaminsanahay hooyo iyo aabo go-aankooda inay ka laabanayaan, weliba ay xaggaaga usoo jileecayaan. taas oo keliya iga gaarsiiyey. dardaarankeyga waa intaas, taladeedana waa intaas. idinkoon wax qaldan sameynin. gabadha wax walba ayada ayaa furi karto, ayadaan xiri karto. asxaabta ayaanu daynayaa wixii kaloo tala ah. idinkuna waad mahadsantihiin. haddii aad video ka heshay like saar, haddii aad ka helin dislike. ولكن ودن بحر ودن له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الكريم ميلو بو أجوكتان فرحتكم صومة أو فرحتكم ولاد.